maxaad ka ogtahay wiilka Sheekh Zaakir Naik ee loo raadinayo gabadha shuruudaha badan lagu xiray shuruudaha gabadha loo raadinayo wiilka Sheekh Zaakir Naik waa kuwo aad u adag marka loo eego gabdhaha Soomaaliyeed sida darteed waxa la isweydiinayaa suuragal ma tahay in gabdhaha Soomaaliyeed laga dhaxelo gabar buuxin karta shuruudaha laga doonayo gabadha loo guurinayo wiilka Sheekh Zaakir Naik sheekha caanka ah ee u dhashay dalka Hindiya Zaakir Naik ayaa bartiisa Facebook ku soo bandhigay qoraal uu wiilkiisa ugu raadinayo gabar uu guursado qoraalka sheekha ayaa waxa la socda waraaqo ay ku qoran yihiin macluumaadka wiilkiisa iyo shuruudaha laga rabo gabadha uu la doonayo wiilkiisa Faariq waxa uu yiri Sheekh Zaakir Naik waxaan xaas u raadinayaa wiilkayga Faariq waxaan u rabaa gabar muslim ah oo suuban oo leh akhlaaq wanaagsan si ay wiilkayga iyo xaaskiisu u noqdaan laba qof oo midba midka kale u sheego wanaaga haddaba wax ka ogow taariikhdiisa oo kooban wiilka uu dhalay Sheekh Zaakir ee gabadha loo raadinayo Faariq Zaakir Naik waxa uu dhashay 10kii bishii July 1994 dhererkiisu waa 170 cm wuxuu hadda ku nool yahay dalka Malaysia waxa uu ku hadlaa ku dhawaad 4 luqadood oo kala ah Ingiriiska Carabiga Urdu iyo Hindi wuxuu waxbarashadiisa heerka shahaadada koobaad ee shariicada diinta Islaamka ka soo qaatay jaamacadda Islaamiga ee Imaam Maxamed bin Saud ee ku taal Riyadh Saudi Arabia Faariq waxa xafidul Qur'aan ku guuleystay abaalmarino badan waa daaci khudbado diimeed ka jeediyay dalal badan oo ay ka mid yihiin Sacuudiga Qatar Talyaaniga Bahrain Gambia iyo kuwa kale oo badan shuruudaha gabadha loo raadinayo waxa ka mid ah inay tahay gabar muslimad ah ayna ugu dhaqanto sida ay diintu farayso diinta Islaamka in sunnada ay ugu dadaasho inta karaankeeda ah in luqadaha Ingiriiska iyo Carabiga ay taqaano ayna si fiican ugu hadli karto in ninkeeda ay ku dhiirigelin karto dadaalka dacwada Rabbi in ay xaafidul Qur'aan tahay in ay diyaar u tahay in Malaysia ay degto oo halkaas ay ku wada noolaadaan wiilka Dr. Zaakir Naik in shahaadada koobaad ee bachelor degree ay ka haysato diinta Islaamka in ay dhageysatay dhowr daaci oo ku wacdiya luqadaha Ingiriiska iyo qaar kale oo ku xusan waraaqda hoose ee uu soo qoray Dr. Zaakir Naik daawade haddii aad warbixintan ka heshay fadlan like saar bogga wariye Xuseen Cali Xuseen shina share garee si uu gaaro muuqaalkan saaxiibo badan oo adiga kala